nuuru nisaa cinaayad khan amiiraddii muslimka ahayd ee basaasnimada ku shaqayn jirtay. nuur nisaa cinaayad khan oo taallo xusuusteeda lagu sharfay ay ku taallo bartamaha magaalada London ee caasimadda Ingiriiska, sawirkeeduna uu ku yaallo qaybo ka mid ah lacagta Giniga ee dalkaasi. waa amiirad muslim ah oo isirkeedu yahay Hindiyeed, waxaanay ahayd basaasad si dhiiran uga qayb qaadatay dagaalkii ka dhanka ahaa nidaamkii naasiga ee Adolf Hitler. nuuru nisaa oo qisadeeda aynu warbixintan kusoo koobi doonaa, waxay ahayd gabadhii ugu horreysay Ingiriiska ee ku shaqaysay basaasnimo, iyada oo qaabilsanayd qalabka warlaliska, howlaha sirdoonka loo isticmaalayay dagaalkii labaad ee adduunka. hawshaas oo ay ku jirtay ilaa markii ay gacanta u gashay dowladda Jarmalka oo muddo ku dhow 1 sano ciqaab aad u daran marisay, ugu dambeyntiina dishay. nuuru nisaa cinaayad khan oo dhalatay sanadkii 1914, aabaheed waxa uu ahaa Hindi muslim sunniya ah, waxaana xirfadiisu ahayd muusikada iyo macallinnimo dariiqada suufiyadda ku dheer. hooyadeed Birani Amina Begum oo ahayd gabayaa caan ah, iyaduna waxa ay u dhalatay dalka Maraykanka. nuuru nisaa xagga aabbaha waxay isir kala lahayd Suldaan Faatix Cali Saxaab Tiibu oo ahaan jiray boqorka boqortooyadii Maysuura ee koonfurta Hindiya ka jiri jirtay. wuxuu ahaa boqor xilligiisii caan ahaa, waxyaabo badanna kusoo kordhiyay nidaamka dowladnimada iyo militariga ee casrigan jira. waxaa ka mid ahaa hubka gantaalaha, in shaqada lagu nidaamiyo kaltirsiga bilaha iyo sannadaha, iyo nidaamka cashuuraha beriga ah. Suldaan Faatix Tiibu waxaa lagu xasuustaa diidmadii adkeyd ee uu kala hor yimid xukunkii gumaystaha Ingiriiska, waxaanu hogaamiyey dagaal adag oo gumaystaha lagu diidanaa, kuwaasoo ugu dambeyntii ku geeriyooday sanadkii 1799. isla sanadkii uu qarxay dagaalkii koowaad ee adduunka, colaadihii Hindidu ay gumaystaha kala soo horjeedeen kululaadeen, qoyska nuuru nisaa waxay u guureen dalka Ingiriiska, laakiin muddo yar kadib waxay uga sii guureen dalka Faransiiska oo ay gaadheen sanadkii 1920. maadaama oo cinaayad uu taageersanaa aragtidii gobonnimo doonka ahayd ee Hindiya ka socotay waqtigaas, waxa uu dagaal adag kala kulmay sirdoonka Ingiriiska. laamaha baadhista ee Ingiriiskuna si joogto ah ayaa ay arrimahan su'aalo uga weydiin jireen, arrintaas oo ku keentay cadaadis badan oo ugu dambeyntii sabab u noqday inuu qoyskiisa ula guuro magaalada Paris ee dalka Faransiiska, halkaasoo nuuru nisaa labadeeda waalid iyo 3 carruur ah ee ay la dhalatay oo ka yaryaraa ay ku noolaayeen ilaa markii ay da'da nuur gaadhaysay 26 sano jir. nuuru nisaa markii ay Faransiiska tagtay, waxa ay sii wadatay waxbarashadeedii oo ilaa heer jaamacadeed gaarsiisay. waxa kale oo ay qaadatay tababaro dhinaca kalkaalisanimada caafimaadka ah, waxaanay shaqo la bilowday hay-adda Laanqeyrta Cas ee Faransiiska. nuuru nisaa waqtigii ugu badnaa dhallinyaranimadeeda waxa ay ku qaadatay daraasaynta cilmi nafsiga carruurta oo ay ka waday jaamacadda Paris, iyo hal abuurka suugaanta iyo muusikada oo ay kaga shaqayn jirtay macadka Paris. da'da 20aadka iyada oo ku jirta ayaanay bilowday in ay wargeysyada ka soo baxayay xilligaas Faransiiska ku faafiso qoraallo ah qisas ka warramaya nolosha carruurta Hindida. isla xilliyadaas waxa ay soo saartay buug ay ku ururisay 20 sheeko oo ka mid ah suugaantii dhaqanka hore ahayd ee Hindida. ujeeddada nuuru nisaa ma ay ahayn suugaanta carruurta oo keliya, balse waxa kale oo ay muhiimad xoog ah siin jirtay daraasaynta dhaqamada diiniga ah, caadooyinka kala duwan iyo taariikhda suugaanta Yurub. waxaa kaloo ay wax ka qortay sheeko baraleydii hore ee Ruushka, Boolishka iyo Giriigga, sida uu xusayo buugga amiiraddii basaasadda ahayd Spy Princess. nuuru nisaa aabaheed cinaayad waxa uu si adag u aaminsanaa in isfahmi waa kasta nabad lagu xallin karo, lagana dheeraado colaadaha iyo khilaafaadka xitaa diimaha dhexdooda ah. aragtidaas waxay qayb ka ahayd barbaarintii ay nuuru nisaa ku soo ababtay, jidkaas ayaanay ku taagneed intii aanay gelin caloolxumada ay u qabtay gumaystaha Ingiriiska ee dalkeeda haysta iyo naasiga oo ay u arkaysay inuu kaba mici kulul yahay. cinaayad waxa uu dhintay sanadkii 1927 oo uu ku guda jiray safar uu ku tegay dalka Hindiya, waxaanu ka tegay 4 carruur ah oo ay ugu weyn tahay nuur oo 13 sano jirtay xilligaas. sidaas awgeed waxa ay ku qasbanaatay in ay hooyadeed ka gacan siiso korinta agoontaas. sanadkii 1940 ayay dowladda Jarmalka ee Hitler hogaaminayay qabsatay Faransiiska. arrintaas waxa ay caqabad ku noqotay noloshii nuuru nisaa, sababta dagaalka awgii ayaa uu mar kaliya u istaagay habnololeedkii ay ku socotay iyo higsigii ay nolosha ka lahaydba. waxa ay mar kale u qaxday dalka Ingiriiska oo kumanaan dadka Faransiiska deganaa ah ay u baxsadeen. nuuru nisaa markii ay tagtay Ingiriiska waxa ay la baxday magac cusub oo ah magaceeda koowaad ee nuur, iyadoo inta dambe ee nisaa ka reebtay iyo magaca aabaheed oo ay u bedeshay
Bakar. Sidaas awgeed marka laga bilaabo taariikhda intaas ka hadhay waxa ay noqon doontaa Nuur Bakar oo ah haweeney qaxoonti ah oo iyada iyo qoyskeedu ay ka soo baxsadeen dowladdii Naasiga ee Faransiiska qabsatay. Waxa ay ka guurtay xirfadeedii qoraanimada iyo cilmi baadhista iyo sidoo kale muusiga ahayd, waxaanay qayb ka noqotay dhaqdhaqaaq mucaaradeed xooggan ah oo lagaga soo horjeeday Naasiga. Sanadkii 1942 waxa ay ku biirtay haween loo qorayay kalkaaliyaal ka tirsan ciidamada cirka boqortooyada Ingiriiska, gaar ahaan waxa ay tagtay qaybta isgaarsiinta. sidaas ayay ku noqotay gabadhii ugu horeysay ee shaqadan qabatay xilliguu Jarmalka Naasigu xoogga ku haystay Faransiiska. Muddo kadib waxay go'aansatay inay ku biirto sirdoonka, gaar ahaan cutubkii ugu khatarta badnaa oo ahaa agaasinka howlgallada gaarka ah, markaas oo ay noqotay basaasada Ingiriiska uga shaqaynaysa arrimaha Naasiga kulitiga ah. Nuur niyadeeda dhabta ah ma ay ahayn taageerida Ingiriiska, waayo waxa uu ahaa gumaystihii xoogga ku haystay dalkeeda asalka ahaa ee Hindiya. Awowgeedii hore ee boqorka ahaana uu sababtiisa ku baxay, laakiin waxa ay la ahayd in Naasiga khatartiisu ay aad uga weyn tahay gumaystaha Ingiriiska. Waxaa markasta ku xooganayd ruux gobonimo doon ah oo jecel xorriyadda iyo in aanay dowladuhu ku amarku taaglayn dadka rayidka ah iyo nidaamka. Waxa ku weynayd nacaybka ay ka qaaday aragtida uu Naasigu ku xukumayay Faransiiska uu qabsaday iyo falalka foosha xun ee uu geysanayay. Nuur marnaba aragtidan ma ay qarsan, oo xitaa kulankii koowaad ee lagu wareysanayay markii ay gelaysay shaqada ciidamada cirka ee boqortooyada Ingiriiska, waxaa la sheegaa in guddidii imtixaanka ka qaadaysay ay ka yaabisay markii ay si dhiiran ugu sheegtay in marka uu dagaalku dhammaado ay suurtagal tahay inay bilowdo dagaal ay kaga soo horjeedo gumaystaha Ingiriiska ee dalkeeda xoogga ku haysta. Waxa kaloo ay u sheegtay inay diyaar u tahay in ay isfaham ka dhex abuurto Ingiriiska iyo Hindida, biriish xidhiidhna ka dhex abuurto labada shacab, waase haddii uu Ingiriisku si howl la'aan ah gobonimada u siiyo dalkeeda. Hadal caddaanta iyo dhiiranaanta gabadhani waxa ay khilaaf ka dhex abuurtay guddidii loo diray qiimaynteeda in ay ku habboon tahay ku biirista sirdoonka Ingiriiska. Warbixin ay xukuumadda Ingiriisku ka samaysay kulankaasna waxay Amiirad Nuur ku tilmaamtay shakhsiyad aan xasiloonayn, dabeecaddeeduna xun tahay. Waxa intaas ka sii daran ee ay warbixintaasi ku tilmaamtay waa in uu shaki ku jiro in ay ku habboon tahay shaqadan. Si kastaba ha ahaatee, gabadh magaceedu ahaa Farah Atkins oo ahayd sarkaal sirdoon oo madax ka ahaa xulista dadka mutadawiciinta ahaa, ayaa iyadu qabtay ray aad uga duwan kaas. Waxa ay ku qanacsanayd in ay Nuur tahay shakhsiyad dhiiran, garaad badnaanina ka muuqato, sidaas awgeed shaqadan sida ugu habboon u qaban karta. Waxaa intaas dheeraa in ay aaminsanayd in colaadda ay Nuur u qabto Naasigu ay sabab u noqonayso inay si dhab ah dagaalka ka dhanka ah uga qayb gasho. Nuur Nisa waxay si fasax ah u taqaanay afka Faransiiska. Taas waxay ahayd sabab kale oo dheeraad ah oo u fududeysay in lagu daro ciidamada sirdoonka Ingiriiska hoos tegayay ee la baxay xoogagga howlgallada gaarka ah oo magacooda loo soo gaabin jiray SOE. Kooxdan shaqadeedu waxay ahayd in la taageero dhaqdhaqaaqyada wax iska caabinta ee dadka reer Yurub ay doonayeen inay ku hor istaagaan isballaadhinta nidaamka Hitler. Amiirad Nuur Nisa way fahamsaneyd khatarta ay leedahay shaqada loo diray, weliba sida mar dambe la ogaaday lacagta beddelka ah ee ay ku helaysayna aad ayaa u yarayd. Haddana shaqadaas dhaqso ayay u aqbashay. Geelinkii hore ee 17 Juun 1943 Nuur waxay noqotay gabadhii abid ugu horeysay ee basaasad ah ee diyaarad militari dallad kaga booday. Waxaa lagu dejiyay dhabarka dambe ee difaaca Naasiga ee gudaha Faransiiska, gaar ahaan aaggii magaalada Le Mans. Kadib waxa ay u socdaashay Paris oo ay ka bilaabisay shaqada koowaad ee ay ku garab istaagaysay shabakadda wax iska caabinta Faransiiska. Magaca cusub ee ka howlgalaysay waxa uu ahaa Madeleine. Howlgalka loo dirayna waxa uu ahaa inay hayso qalabka isgaarsiinta ee xidhiidhinaya Ingiriiska iyo wax iska caabinta Paris. Waxay ahayd shaqo aad u adag, waayo qalabka isgaarsiintu waxa uu xilligaas ahaa mid aad u weyn, gaar ahaan marka la barbar dhigo qalabka warlaliska ee hadda jira oo aad u yar si fududna loo qarin karo. Mar kasta oo war laga dirayana waxaa qasab ahayd in isticmaalkiisa la wado ugu yaraan 20 daqiiqo oo xidhiidh ah. Sidaas awgeed dadka qalabkan ku shaqeeya waxay mar kasta halis u ahaayeen in cadowgu qabto. Sirdoonka Jarmalku waqtiyadaas aad buu u xoogganaa, waxa aanu basaasin ku dhex beeran jiray kooxaha wax iska caabinta Faransiiska. Sidaas awgeed sirdoonkii Jarmalka ee Gestapo loo yaqaanay waxa uu qabtay ama khaarajiyay xubno badan oo ka mid ah basaasintii shabakadda sirdoon ee ay maamuleysay Nuur. Daraasad xilligaas lagu sameeyay muddada uu qof basaas ahi ku dhex nabadgeli karo Naasiga ayaa lagu xaqiijiyay in basaaska aagaga colaadda loo diraa uu shaqadan ku nabadgeli karo 6 bilood oo keliya. Intaas kadibna in la qabto amba la dilo
uu xaalkiisu dhow yahay. Waxaa yaab lahaa in Nuur ay iyadu muddo dheer shaqaynaysay iyada oo xeelado yaab leh adeegsanaysana ay cadowgeeda ka dhuumanaysay. Waxa ay maamuleysay shabakad aad u ballaaran oo ah basaasin ku filqan dalka Faransiiska oo dhan. Sirdoonka Jarmalku waxa uu ku jahwareeray in uu qabto gabadhan oo uu ogaaday in ay basaasad khatar ah tahay, kana howlgelaysa aagag aan ka fogeyn halka ay degan yihiin amba iyaga dhexdoodaba ah. Magaca oo ay badbadasho, goobta ay joogto oo ay ka guurguurto, muuqaalkeeda oo ay hadba nooc u ekaysiiso, iyo xeelado kale oo tiro badan oo ay duruufuhu bareen ayaa ay adeegsanaysay Nuur. Si kastaba ha ahaatee, xeeldheerayaasha sirdoonku waxa ay aaminsan yihiin in ugu dambayntii ay eersatay tababarka sirdoon ee ay qabtay oo aan gaarsiisnayn heerkii looga baahnaa nooca shaqo ee loo diray. Muddadii uu sirdoonka Jarmalku baacsanayay, mar ka mid ah oo ay Madeleine dirqi kaga baxsatay, ayaa ay Jarmalku heleen buuggeedii xusuusaha muhiimka ah ay ku qori jirtay oo ay ka carartay. Xogtii buuggaas uu Jarmalku ka helay oo ugu weyneyd erayada afgarashada ah iyo furayaasha sirta ah ee qalabka warlaliska ayaa sirdoonka Jarmalka u suurtageliyey inuu xogo majara habaabin ah u diro sirdoonka Ingiriiska. Kalsoonida weyn ee sirdoonka Ingiriiska ee MI6 uu ku qabay Nuur waxay sababtay in uu rumaysto xogta qalabka isgaarsiinta lagu soo dirayay iyo inuu xogo fiican ka siiyaan shabakadihii kale ee basaasiinta la shaqaynaysay ee Baaris joogtay. Arrimahaas ayaa la aaminsan yahay in ay fududaysay qabashada xubno badan oo ka mid ah basaasiintii Ingiriiska u joogay Faransiiska iyo Nuur qudheedaba oo ugu dambayntii gacanta lagu dhigay. ugu dambayntii waa la khiyaameeyay Nuur. Sirdoonka Jarmalka ee Gestapo ugu dambayntii waxa uu gacanta ku dhigay Nuur oo uu aqoonsaday in ay tahay maxbuusad aad u khatar badan. Dabayaaqadii sanadkii 1943 ayaa ahayd markii uu sirdoonka Jarmalku si rasmi ah u aqoonsaday cidda ay tahay basaasadan muddada dheer la garan la'aa. Qorshe muddo laga shaqaynayay ayaa lagu soo qabtay Amiirad Nuur oo joogtay guri ay ka deganeyd magaalada Baaris. Taariikhyahanadu waa isku khilaafaan cidda uu yahay khaayinka warka basaasadan fashiliyay, waxaase ay u badan yihiin laba qof. Henry Dericourt oo ka mid ahaa basaasiinta Ingiriiska u shaqaynayay ee ku jiray shabakadda Amiiradda, laakiin mar dambe la ogaaday inuu ahaa laba wajiile dhinaca kale kaga xidhnaa sirdoonka Jarmalka. Waxaa iyaguna jira xogaha qaar sheegaya in sirdoonka Ingiriiska ee MI6 qudhiisu uu ninkan ku amray in la fashiliyo basaasadan. Muddo markii sirdoonka Jarmalka uu fariimaha majara habaabinta ah u dirayay, ayaa MI6 fahamtay in cidda xogta siisa ay tahay sirdoonka Jarmalka oo adeegsanaysa furayaashii sirta ahayd ee Nuur. taas waxay sababtay in markii dambe uu sirdoonka Ingiriisku rumaysan waayo ama isgaarsiintaba ka xidho dhammaan furayaashii sirta ahaa ee adeegsanayeen basaasiintooda Faransiiska joogta. Sirdoonka Ingiriiska oo ka xun in basaasiintooda badankoodii la qabtay ama la dilay, isla markaana fahamsanaa in amiiraddu halis ku jirto maadaama uu xitaa furayaasheedii sirta ahaa la qaaday, waxay ka dalbadeen inay dalka Ingiriiska dib ugu soo noqoto. laakiin Nuur waa iska dhagamarisay amarkaas, waxaanay ku adkaysatay inay sii wadayso dagaalka ka dhanka ah nidaamkii Hitler ee Jarmalka. waxaa la odhan karaa waxa ay ka baqatay in sirdoonka Ingiriisku uu ku ciqaabo gefka dhacay ee ah in buuggii furayaasha sirtu ku qornaayeen laga helay oo loo adeegsaday in xogo laga soo diro, iyaduna aanay si dhaqsa arrintaas ugu soo wargelin sirdoonka Ingiriiska amba aanay u soo baxsan dalka Ingiriiska. waxaa kaloo la sheegay in sababtu ay ahayd kalsoonida xad-dhaafka ah ee ay isku qabtay iyo qabka ay ka qaaday xeeladihii hore u guulaystay ee ay adeegsanaysay, iyadoo markana isku qancisay in sirdoonka Jarmalka ay ka baxsan karto isla markaana shaqadeeda sii wadan karto si ay khasaare u gaarsiiso. waxaa kaloo jiray xogo mar dambe soo baxay oo sheegaya in MI6 ay ka shakiday in Nuur ay noqotay khaayimad dhinac uga shaqaynaysa Jarmalka. xeeldheerayaasha sidan aaminsan ayaa ku doodaya suurtagalnimada in MI6 ay basaaskeedan Henry Dericourt amartay inuu sirdoonka Jarmalka ku soo hago Nuur si loo qabto. qofka kale ee loo badinayay inuu faafiyey sirta basaasadan lagu qabtay waa gabadh lagu magacaabo Renée Gary. waxay ka mid ahayd basaasiinta la shaqaynayay Ingiriiska ee ay Nuur maamulaysay, waxaana la aaminsan yahay inay ka argoonsanaysay Nuur oo ay ka masiirsanayd, maadaama ay aaminsanayd in ay Nuur xiriir jacayl la leedahay Robert Antrim oo ahaa basaas Faransiis ah oo ka tirsanaa isla wakaaladda SOE, kaas oo Renée Gary aada u jeclayd. sanadkii 1944 ayaa Nuur iyo 3 ka mid ah basaasiintii shabakadeeda oo iyagana la qabtay waxaa la geeyay xarun military oo ku taala koonfurta Jarmalka. baadhis adag oo sirdoonka Jarmalku ku sameeyay xeelad iyo xoog mid kasta oo adeegsadayba, Nuur waa ay diiday in ay wax xog ah bixiso.
laba jeerna waxay isku dayday inay xabsiga ka baxsato. mar labadaa jeer ka mid ah waxay ku guulaysatay inay ka baxdo xabsiga, laakiin waa la soo qabtay markii ay saacado yar baxsi ahayd. muddo 10 bilood ah ayaa ay xabsi ku jirtay iyadoo u adkaysatay ciqaab nooc kasta ah oo la mariyay, laakiin aanay wax xog ah bixin. ugu dambeyntii Jarmalku waxay go'aansadeen inay dilaan 13 Sebtembar 1944 ayaana dilkaas oo toogasho ah lagu fuliyay. qaabka loo dilay laba siyaabood ayaa looga sheekeeyaa. sarkaal ka tirsanaa wakaaladii amniga dabagalka iyo argagaxgelinta u qaabilsanaa dowladii Hitler ayaa isagu sheegay inuu goobjoog u ahaa markii la dilayay Nuur, waxa aanu ku dooday in qaab nidaamka waafaqsan caafimaad ahaana loo hubiyay loo fuliyay dilkaas oo ay maxkamadi ku xukuntay. laakiin maxbuus isaguna ku jiray xabsiga ay Nuur ku xidhnayd ayaa sheekadaas aad uga duwan ka sheekeeyay. waxa uu sheegay in Nuur aad loo jir dilay ka hor intii aan dilka lagu fulin. waxa kale oo uu sheegay in ereygii uu dambeeyay ee dhimashadeeda ka hor ay ku dhawaaqayso uu ahaa Labert oo macnaheedu yahay gobonimo. geeridii kadib, amiirad Nuur amba basaasadii Madeleine waxaa lagu maamusay abaalmarino iyo bilado kala duwan oo lagu xusayo geesinimadeeda. sanadkii 1949 waxay heshay bilada George Cruz oo ah bilad sharafta labaad ee ugu sareysa dalka Ingiriiska ee halyeynimada lagu helo. dowladda Faransiiska ayaa iyaduna guddoonsiisay bilad sharaf sare sanadkii 2011kiina taallo ka samaysan macdanta bronze oo ah sawirka Nuur ayaa laga dhisay bartamaha magaalada London, meel aan ka fogeyn guriga ay deganaan jirtay. sidoo kale sanadkii 2020 ayaa sawirkeeda lagu daabacay noorka 50 geni ee lacagta dalka Ingiriiska. Marjan Tube.